السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليس ودواذا ولا شيء نماتي للوذاقش عشر دريركا waxaa halkaas ku haystaa waa bur waa ukun waa bread crumb adigu qiyaasta inta isticmaalaysid sometimes makaa dhamaana yes sometimes ugu badanaana yes adigu kolba qiyaaso reerkaaga intaad u sameynaysid aniga malaygana soo gaday fishkan filetka ah waxaan kasoo gaday Costco waxaan ku sameynayaa ujeedin burkii xoogaa kusoo qalaji and then waxaan sameeyay ukunta dhexgeli and then a bread crumb kan gelinaya of course wuu daatay obviously and so saa ujeedin wuxuu kusoo bixi doonaa insha Allah aad arki doontid video wax kale idin wadaagay waxaan idin kula wadaagay markuu waraysan idin dhowraal noqdo video aan idin dhigayaa maanayto and I'm back insha Allah durabimo waan ku xumahay maaragtay consistent ahayn channelkan runta idin sheego waxa weeyaan wax walba waa dhiirigelin weeyaan haddii maaragtay lagu dhiirigeliyo oo support lagu siiyo waxa waaye aad ba shaqeynaysaa laakiin haddii maaragtay dee lagaa seexdo aad waa seexanaysaa xalada waa dhibsanaysaa inaad shaqo ka qabatid adoo jecel inaad wax samaysid adoo jecel inaad dadka dhiirigelisid adoo jecel inaad wax samaysid marka anyways channelka kale waaye walaashiina hada isku filan channelka kale unique hooyo channelka kale to hadda iga soo raacday walaashay jeclaha tahay jazakallahu khair walaalay ugu xiran haddii maaragtay aad igu cusub tahay uu channelkaanito uu kugu yahay yaawa qoftaanito aniga le waaye channelkan waxaan u furo wax kale ma aha waxaan rabaa inaan videoyada oo dhiirigelinta ah aan ku sameeyo channelka kale tan inaan maaragtay dhiirigelinta oo dhaqaalaha ama waxyaalaha oo quseeya dhaqaalaha inaan ka sheekeeyo oo channelkaas kale ugu talagalay channelkaanito marka cunto leh iyo guri nadiifis iyo waxaan rabaa maaragtay waxyaalaha kaleeto oo dhiirigelinta hooyada quseysa ah inaan kasoo dahayo hadduu rabbino so halkaaneto malaygii aan sameynayay explanation uma baahno ujeedin bread crumb markaa sameeyey saliid yaraan xoogaa yar kululeystay saliid xataa ujeeda waa yariis waay ma aha saliid fara badan okay because deep fry inaan ku sameynayaa hadda ma la ilbaxay yes waa la ilbaxay hadda waxaa la isticmaalaa geedkii air fryer hadda la isticmaalayo dhararac waxa kaasina khatar kaaga dhigayo insha Allah waa idin wadaagi doonaa hadduu rabbi idmo air fryer la soo gatay ilaa hadda lama furo weli laakiinse markii la furaayo maaragtay openinka idinkaaba surprise laga dhigayo insha Allah hadduu rabbi idmo goorma soo gaday taqaanin 6 bilood ka hor soo gaday everyday waxaan dhahaa biri baan furi doonaa because waxaan rabaa video ka daba moogta and so deep frying in the meantime isticmaalina inkastaan deep frying ka daayay cuntada faraha badan cuntada waageygii hore saan u sameyn jiray oo freezerkan qaar gelin jiray qaarna because ilmaha yaryaraa moogta hadda waa la weynaaday wax walba la siinaya wax la dhaafay malaha waagi hore left over cunta hari jirtay maaragtay ilmihii I don't know maybe cunto badan aan sameyn jiray oo cuntooyin fara badan oo kala nooca meelaha yaale but hadda I really say wuxuu kala yareeraysaa I don't know sidoo kale qofka ah maaragno commentiga ka arko cuntada saa u yareereynay miyaa ma ogi waxaan malaysaa cuntada in aad loo cuno dadkin waa weynaadeen maaragtay guriga aad u dheeraaday so anyways cuntada saas u samaysan jiray waa kala xariisan jiray so hooyada ilmaha yaryarka haysto yaa advice hadaa rabtina iga maqashid cuntada farabadi markaa karsatid qaarna freezerska geli maalin maaragtay adigu kaaja jabanta tacbaan oo kala jeedada lugta jiidaysa oo hurdo tacbaan la ah ama daal tacbaan la ah maaragtay ayaa soo saaranaysaa kii freezerka kugu jiray freezerka wixii la geliyay horta hore long life u siiyaa okay saan isagoo fresh ah ujeedaa aan dabka qaaday waxa u haray kaliya waxa waa inaan oven ka geliyo aan kusii kariyo moogta so marka waxaad samaysanaysaa saas oo kaleeto cuntada freezer kugu jirta xabadna waa ujeeda warqadaan ku duubay warqadaas warqadi maaha freezerka loogu talagalo waxa waa bakingki kii loogu talagalo waay laakiin ma haysan kii kale mid waxaa jiro haddaad tagtid dukaamada dollar storeka iyo dukaamada oo bakeryga ama dukaamada groceryga walmartiga whatever laba warqadood waay warqadna waxaa loogu talagalo ovenkii lala geliyo cuntada warqadan waxaa loogu talagalay in waxyaalaha freezerka la gelinayo saasoo kale dividerka ugu samaysid bariis ma idin sharxaya waa maya bariiskayga oo dharacdhacda ah waay kana yaa isdaba dhig waay marka waxaan kuu sheegaa waxa waaye hooyada ilmaha yaryariska haysatay ay ka faa'iideyso tusaalooyinka aad ka arkaysa social media hooyooyinka weliba experience-ga xoogaaga leeyaa ma dhaha experience badan leeyahay laakiinse ilmaha soo koriya ma ogtaa marka hooyo walba ilma soo korayso waxa waa experience weyn ay leedahay in laga faa'iideysto waaye wax laga barto wax laga faa'iideysto
marka aniga taas unbaa ma aragtay youtube dhex fariisasay otherwise mar horaa boorsada qaadanaa dhihilayaa what meeshaaneeto walaashiina shaqa full time bilowday soo idinka shaqaysaa busy idinka noqotay walahi ilmihi korino dhuunada yariista aheed oo babyda aheed oo lagu koriyo meesha ma aragtay ayaa waxay noqotay double digit ayaa 10 jir waaye marka gabadh yartay waa kortay guriga waxa waaye waa laga wada socdaa jaamacada la aadaya iskuulaadkii la wada socdaa nolol la wada yeelanayaa so ay hele shaqo inay iska heshid waayno meelna lugta la gashid waaye ay shaqaysatid marka hooyadan ay shaqay bilowday waa idinka mashquulshay marka insha Allah isku dayayaa saan oo kale ma aragtina wax isku soo naashnaasho idin keeno ay dhiiri geliyo marka hooyo wal marka ilmaha u korayaan ama iskuul ku noqon laheeda ama shaqaysan laheeda adiga waay haye halkan deserta lagu tuuraa ma ka heshay mafanka guriga aad iyo aad loogu jeclaan jiray hadda ma tag maba maqli karaanba mafan yeah anigana hee waxaan ku soo baxayba hooyo aan rabin shaqadaas qabato waagi hore aan roonahay hooyo fiican oo kan u sameeya ahaa hadda ma rabin aan u sameeyo laakiinse danta ay u kalifayso because sometimes caruurta waxa waaye guriga jaceelka waalidka waxyaalaha keena waxa waaye calooshooda buuxdo guriga qurux u ah adiga af macaan ku hadashay yaa inta yaryar yihiin hooyada ilmaha yariiska heysatooy isaga dulqaado waa korayaan dadkan markay koraan erda ay ka wada baxayaan tooda yeelanaya noloshooda qof walba noloshiisa u raacanaya marka waxaan ku leeyahay ka faa'iideyso hooyada kale taad aragtid aad wax ka maqashid ka dhageyso ka dhuuqiya fikradaha iyo caqliga ka dhuuq aan ku leeyahay ideerada ku sii soo dhan ka dhuuq ka qaado insha Allah to rabino so meeshaan waxaa sameynaa ujeedaa kastarkiya dhararag laga siinayaa lagu kordaadin doonaa insha Allah durabidmo soo kastar ma idin sheegaa waa maya waa taqaani si loo sameeyo laakiin waxaan rabaa inaan maaragtay aan ku siiyo fikradda hooyooyinka oo ilmaha u koreen yaa ani waxaan ku dhihi lahaa ama wax baran laheedaa ama iskuul aadi laheedaa ama shaqo aadi laheedaa waxa waa inaa mashquul iska dhigtiin maskaxda in laga shaqeeyo haddii kale waa isku dhex daadanaysa uga fikiraysa dad kale afkooda la fiirinaysa aaba adduunkiiba ku dhaafayaa marka إنه حوا إلهي سبحانه وتعالى اسكو حرنو هدي Islamic classes aad laheedna ka faa'iideysa ku dhila alhuda is the best reer Canada ila tahay marka online xataa hadda classyo oo qurux badan laga bixiyaa fiican ma sha Allah ajira xasanad Allah ka siiyo wadaado badan ayaa online hadda dadku u fadhiyo free hadii ahaan lahayd book mid loogu charge gareynayo labada waa yaalaan anyway it's a video idinku dheereeyo malaynaa jazakallahu khayra daawanaysay fadlan hadda ugu cusubtaa maaragtay meesha oo dhacdhac ah oo subscribe kala taabto waa la bedelaa leeyahay hadda yaa meesha guduudka dhihi jirna hadda guduud ma jire meesha oo gareega ka ah yaa oo dhac iga siiyaan ku leeyahay dhacdhac subscribe ka dhac noo sii insha Allah durabidmo video dambana yaa waa isla socon doonaa idinkana yaa videoda gadaal ugu noqday yaa qayo meeshii waxa waay dhaq ay ga dhigteen videoda korna soo qaadaya hoos noo dhigina insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.